السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورما هدان إلي راهدو قلبيتك أما وسترينك وحلي راهدو ديمقراطيات كما جرتو أما حرية القول سيدي وركيسان إريكا ملقيا بين الهدان مايا وودمد ديمقراطيك سيدا الشيغانيان ودل دادكو عوديان أو دادكو وحي ربان دورتان أو أركتيدا دادكا وحلقو حكومو waayahay haddii sidaas ay tahay waxaan isla arki doonaa maantay xitaa xuriyatul qowlka loo tixgelin waayay caruurta yaryar doonistooda ee wax kale lagu qasbayo hadduu ayada ka jira ka warrama waxaan isla arkaynaa ka warrama dimuqraadiyadda dalkeenna loo rabo waa noocma wax ma ka ogtahay se waxa reer Yurub ama caalamka aan dhahno beesha caalamka waxyaabaha ay tahay main bontigooda haddii Soomaali wax siinayaan ay u siinayaan haddii Soomaali wax diidayaan ay u diidayaan ma ogtahay haddaba ku soo dhawaada fadhigeena maantay walaalahayga ku xiran mo podcast waxaan isha ku saari doonaa fadhigeena ama ku eegi doonaa Faransiiska weekend la soo dhaafay 16 bishan June 2023 magaalo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalku leeyahay gobolatoore ka taliya ayaa wuxuu leeyahay ilmaha yaryarka ee Faransiiska muslimiinta ah ee ku nool Faransiiska iskuulada salaada ay ku tukanayaan waxay ka soo horjeedaa dabcan wuxuu ku tilmaamay calmaaniyada waxay dib u dhac ku tahay hadda muxuu leeyahay calmaaniyada ay dib ku tahay wuxuu yiri dabcan ilmaha yaryar waxay u ducaynayaan nabi Muhammad ama Muhammad ay u ducaynayaan taasoo calmaaniyada dib ku ah ka warrama waa wadan dimuqraadiga haddaan idin dhaho waaba sida ay sheeganayaan ka warrama aan ka soo tagno waxaan isla eegi doonaa maxaa ku qasbaya iyo waxyaabaha kale laakiin intaan hordhac u qaado Faransiiska waa dalka ugu badan ama dalka ugu horeeya ee muslimiinta ugu badan ay Yurub ku nool yihiin dad lagu qiyaasayo ilaa iyo in ka badan 5 milyan oo 5 milyan qiyaasa ku dhow ku nool baa Faransiiska sometimes waxay leeyihiin 4 iyo something laakiin waa iska 5 milyan markii wax la soo arooriyo dimuqraadiyadda 5 milyan caruurtoodii looga xanibayo oo la leeyahay iskuulada markay ku tukanayaan waxay u ducaynayaan Muhammad jamaaciyuusan ku tukan guryaha la aadan salaadooda ka warrama dimuqraadiyaddaas horaantiiba wadanka Faransiiska sida in badan aan wada ognahay gabdhaha xijaabka baa loo diiday mashaacir islaami la muujiyo la diiday laakiin waxaan isla eegi doonaa ilmaha iskuulada cabaayada ama dharka islaamka gabadhu haday xitaa jaamacad ama meel dhiganayso culays ay ku tahay inay qaataan koow horta dareeska looga bilaabay dabcan waxa la yiri dareeska aad rabtaan ma xidhanaysaan waa in waxa la rabo aad xidhataan dharkii baa dib lagu qabay waa laga soo gudbay waa la isaga sabriyay waayo dadku muslimiinta marka muslimku leeyahay maskaxdaada aysan ku soo dhicin Soomaali meesha tagtay waxaan ka yareen oo tir ahaan bale ka badana la dhihi karaa dadka Faransiiska ah ee muslimka ah dadka muslimiinta ah ee Faransiiska ah ee meesha degan waa dad badan population marka lagu yiraahdo 5 milyan waxa Arab ama waxa meesha ka jira 5 milyan waxay ka yihiin 2 milyan iyo bar haday u yiraahdaan wala Afrikaan la kaxaystaaba aade dad cadaana ama dad meesha ku dhashay ama dad kaabka deganaayo muslimiinha jira marka dhamaan waa isku xukun waa la leeyahay islaam hadaa tahay ilmihi yaraa waxa la yiri salaadiinu cusri bay nugu tahay hadaba waa maxay calmaaniyada salaadu ka soo horjeeda waa midda aan arkaynay walaalo Soomaaliyeed leh anaga hadina la dhaho kitaabka ma aan isku xukumnaa mase diinta iyo siyaasadda hal kala saaro waa meesha loo socday laha hal kala saaro diinta iyo siyaasadda waa midaan wallahi inaysan wax kala ahayn waa midda leh iskuulka dansi baa lagu sameynayaa iskuulka waxa lagu soo bandhigayaa dhaqamada xunxun ee hadda gaal iyo muslimba qaarkood ay leeyahay yihiin ee la leeyahay gabadheedu laga dhaadhicinayo ma tiidnin mana tiidnaag waxaad rabtaad noqon kartaa ada future-ka go'aamin kara gabar baa la leeyahay mana tiid gabar mana tiidnin just you can be whatever you want waxaad rabtaan noqon kartaa wiilishi daadee looga dhaadhicin ayagoo yar yar wadaada dhahan
haddii gabadha go-aan kuma qaadan karto, laakiin ayagu go-aan ugu yeerayaan iskuuladii lagu dhigayaa, intaasba ilmihii way ku shubayaan. haatan waxay u diidan yihiin inay ilmihii masaajidda inta tagaan, masaajid ba iska raafi qol iskuulkii ka mida ay ku wada tukadaan. magaalada Nice oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn uguna populationka badan dalka Faransiiska, gobolatoore haysta wuxuu leeyahay prime ministerka aan ognahay nacaybka muslimiinta halka uu ka joogo Emmanuel Macron wuxuu qorayaa wuxuu leeyahay gobolkan dadka ku tukanaya, ilmaha yaryar iskuulada ku tukanaya waxay halis ku yihiin calmaaniyadda. calmaaniyadda halis ku yihiin. war waa maxay calmaaniyaddu? ilmuhu diin ma haystaan. horta wareyn diinka iyo salaada waxaaba ka horeeyay ilmaha raashinka la cunaayo, yacni ilmuhu koleejada waxbaa laga kariyaa. in koleejka raashinka laga kariyo doofaarka ama waxyaabihii islaamka xaaraanta ka ahaa ayaa ilmaha islaamka loo diyaarin, la cuna la leeyahay waxaas raashinka joos kale ilmuhu ma laha, oo waxay ku qasban yihiin waxa ay cunayaan inay cunaan. waxa ay haddii kalena ay dabcan wax aan markaas la kariyey oo diinta aan ka hor imaanin ama rooti qallalan ama wax la halmaala inay cunaan ama xoolan gowracnayn baa la siinin. haddii dhahaan no anaga nooma lihidin khiyaar baa la leeyahay. waa waddankan ku leeyahay waa waddanka ugu islaamka badan ee wadamada leh, xor baanu nahay oo dimuqraadiyad baan nahay oo kale taliska ma jiro. waa sidaas. waxaa idiin barbar dhigi doonaa wadamo kale oo hadda uu ka mid yahay Ruushka. waxaan jeclahay waqtiga igu yaraanaya inaan podcast kale ka diyaariyo qodiisa islaamka iyo halku ka joogo Putin oo maalin dhaweyd qofkii kitaab guba xad ka soo saaray oo yiri xadkaasi wuxuu noqon doono insha Allah podcast kale ka dhigan doonaa haddii ii suurto gasho. laakiin maanta waxaan ku falaqayn doonaa oon ku eegi doonaa ilmaha markii ugu horeysay cuntadii iskuulka markii ku soo biireen, cuntadii ay cuni lahaayeen. waxaa la yiri cuntada wixii annaga aan cuni karnaad cunaysaan, wax adinka idin qaasa minuska laguma darayo oo ladima sameynayo. wax xaqiiqa markii intaas laga gudbay dharkii baa loo yimid. dharku awalba ilmaha looma ogoleen inay qaataan dhar waaweyn, looma ogoleen inay dhar gabadh is asurto walow ay qangaar tahay xataa. waa inay sharciga dharka ilaalisaa. haye kuwa iskaga qaateen muslimiintii dabcan way jilceen dadka islaamka ahi, wadamadoodiina waa la gubayaa, ayagiiba isgubaya hadduu ka soo cararay, hadduu ku dhashay waddankeena dee waa wixii meesha waaqaca waa ku saameeyaaho dee waaqic ugu saameeyey muslimiinta meesha ku noolaa. waxyaabaha jira marka waxaa ka mid dharkii gabdhihii looma ogola inay xidhaan, mashaacir islaam muujiyaan. cuntadii baan soo sheegnay in la yiri wixii boogii doofaarkii wixii xaaraan tahaabaa meeshan kada yaala, dee dabcan ama qaata ama isaga taga. waa ilmo yaryar allahu aclam inay cunayaan, inay ka tegayaan, inay rooti qalan cunayaan, allahu aclam. waa dareemi kartaa marxaladaas qof ku jiro. awlna tira yaraa minority ahaa iskuulkiiba laga yaaba haddii 200 lagu dhiganayo inay 50 ka ahayd ama 30 ka ahayd, haddana culayskaas la sii saaray, haddana caruur ah. waxay badan tahay inuu badda galo. waa kunaa naquudu maca alqaa'idiin. hadda waxaa la marayaa marka in la yidhaha war salaada aad tukanaysaan, salaada ilmuhuna tukanayaan, culays bay nagu tahay haddaan nahay dadka cilmaaniyadda. ma dhahay kristaantiga culays ku tahay, wuxuu yidhi calmaaniyadda. haddana waa maxay sababta keentay in uu dhaho calmaaniyadda culays ku tahay? salaada uu yiri maxamed baa loogu ducayn, wuxuu aaminsan yahay salaada maxamed in loogu ducaynayo, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam duca waa ka dhan yahay. annagaas dan u aragnay inaan ku sallino oon wax ka raadsano salligiisa, annagaa ajar ku helayno. marka haddaba maxay tahay ma toleransigii wax ka wada yacni tolerance markaan leeyahay waxay dhahaan ereygaas tolerance ba dhahaan. islaamka tu yimaadeen wax ku leeyihin dhulkeena ka ogolaada masaajidin kaniisadin laga dhiso sidii annagoo kale. hadda tiraado anaga dhulkeena muslim buyuura waaye, baahi kaniisad laga dhisan ma ka jirto. marka ayagu maantay baahi way diidan yihiin ilmihiina dariiska ogolaadaan, cuntada xalaashooda dooqooda ugu daraan iskuulkii maadaama ay arday xaq leeyihiin, waalidiintii ay dhaleen oo joogaan population intaan leego islaan u yahay. haddaba haddii waddanka la taliso islaamka dhiba sidii Hindiya iyo China iyo laga sheekayn jiray, ayaguba kama shar yara oo kuwaas ayagoo dimuqraadiyad sheeganaya ay dilayaan islaamkii. bale waxa u sii dheer waxyaabahan ka jirin wadamadaas in hadda lagu qasbo ilmihii waxa loo dhigay, waxa leeyahay waxaad noqon kartaa gabadhii wiilkiina gabar,
cirbado sometimes hadii bila amar bay ku durayaan cirbad inta isbitaal geeyaan gabadhii gabarnimadeedii xubnaheedii kori lahaa ka hortagaysa haddaba waaqica dimuqraadiyadda lala rabo dalkeena dadkeena populationkeena Soomaali gaar ahaan anigu maadaama Soomaali aan ahay waa dimuqraadiyaddaasi ogaada waa midda aan arkay dad Soomaaliyeed oo leh aqoon yahanaan leh oo leh diinka iyo hanaloo kala saaro siyaasadda oo sida nimankaas aan u dhaqano dastuurkooda noo soo minguuriya dastuur warqadahooda noo soo minguuriya nagu xukuma because way hormareen saas bay gaareen maya haddaba muslimiinta Faransiisku gaar ahaan hooyooyinku arrintaas waxay ku noqotay dhib taagan waxay ku noqotay wax muslimiinta dhib ay ku awalba dariiskii iyo cuntadii ku dhibanaayeen haatan waxaa la martiinay in la yiraahdo salaada aad tukanaysaan waxay nagu tahay cilmaaniyadii ka hor imaanaysaa haye ma aragteen dad Soomaaliyeed cilmaaniyadda la dhacsan cilmaaniyaddu waa noocaas inaadan qof u ogolaanin duuqiisa oo adigu kiisa ku qasabto oo tiraahdo war sidaan ogolow hadii kale waa waxba kama jiraan warkaaga haddaba salaadii ilmihii yaryarka ahaa qof diidaya oo leh ma tukan kartaan طبعا waa ruudka waa xididka waa salka waa meesha islaamka lagala diriiri karo kuwa waaweyn masaajid hadistaan waa ka soco laakiin kuwa waaweyn ayagu way dhimanayaan ama way duqoobayaan oo way tagayaan maxaa ku xigay kuwa waaweyn waxa ku xigay jiilkaana u koraya ka waran jiil lagu soo dhaamiyay ama lagu soo maskaxda looga soo duubay qofku markuu ku arko reer galbeedka haddaad qof diintiisa ama caqaidiisa tixgelinaya tahay wuxuu ku leeyahay you have brainwashed maskaxdaada waa la dhaqay you have brainwashed maskaxdaada way dhaqan tahay almost oo maskaxdaada waa la dhaqay maxaa lagu dhaqay waxba lagu dhajiyay aniga yiraahdeen inta qodob mabaadi iyo wax kala doodnay kuwa kristana dabcan waxa tahay xagjir maxaad xagjir ku tahay dawdiisana diintaada ku dhigantay xagjir ku tahay waxay rabaan haddaad aragteen dadka kristanka ah ee wadamadaas jooga marka la weydiiyo diinta iyo diin wala kristaanatiga ay sheegtaan waxa kale I'm not religious ma ahi qof diinta yani dabcan raaca oo kaniisadaha ma aado oo waxyaabaha ma tixgeliyo dabcan waan noolahay waa waxa qodobka ay u dig iyo dam leeyihiin western society-gu wadamada qaar way jiraan dad way jiraan kristaanatigoodii waxooda dhowra ka soo horjeeda xitaa aragtidan liidata ee ah in dadkii gabdhihii iyo wiilashii la yiraahdo ma tihid wiil mana tihid gabar waxa tahay waxa doonto way jiraan dad saas xitaa ilmihi ku gadaya population saas luminayo wadamo dhan kulay waxaad moodaa inay la dirirayaanba jiritaankooda mowduuc kaloo noqon doonaa haddii rabbeedmo saameynta waxyaabaha ay ugu yeeraan dadka isku jinsiga ah waxyaabaha iyo maxay dunida ku soo kordhin kartaa dhinacyo badan anagu ka eegayna insha Allah ama video ayaan halkan ka soo dhigi doonaa Cabdi ama hadii waqtigu aan siraado podcast hanba usoo duubi doonaa podcastga ayaana qayr badan oo waayo wax badan baad soo gudbin kartaa wixii faahfaahsan waxyaabahaasna way sharciyanayaan oo waa waxa ay ka gadayaan marka dad Christianity waxa jira ka soo horjeeda xitaa oo diidan dadka midigta la leeyahay anagu dhib aan u aragnaa dadka dhoofkii waxbay ka hor yimaadaano taraam wuxuu xiraaho waa run uu xiraa laakiin ilmaha adeerada dhaleen ilmaha walaalaha dhaleen xagga jooga hadduu ninkaas midigta faga kursiga qabsado iskuulada waxaan lagu ma barayo at least san way dhaamaan hadda qoliyahan haystaa waxay ku qasbayaan leeyihiin iskuuladii waa inaad bartaan ilmaha hawlahaas mawduuceenu maanta kaas ma ahayn laakiin wuxuu ahaa war aaway dimuqraadiyadii ay qoliyahan sheegan jireen xagee ka baxday maxaa ku dhacay soo kuwan ilmaha yaryar u diidan inay tukadaan cilmaaniyadu cabsida ay ka qabtaa waa maxay nabi maxamed iyo salaada iyo islaamka horta mid baa idin sheegaya jawaabtan inaan la soo dahan moodaa oo qaybaha dambe aan u dhigay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuuna leeyahay bacda a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim walan tarda canka alyahuudu walan nasaara xataa tattabica millatahum ha ka yaabin ha aaminin inay raalli 100% ka noqdaan yahuud iyo nasaaraba ilaa ayaga diinkooda aad ka waafaqdo iskuulada waa lagu dheeli karaa diinkoodu waafaqsan yahay
xumaan oo dhan lagu sameyn karaa diinkoodu waafaqsan yahay ilmuhu inay qol ku tukadaan oo fariido waajib oo xilligaas weliba ay tukanayaan saaran gutaanna cilmaaniyadii kasoo horjeedaa waa aragtidooda waana wadanka ay ku nool yihiin 3.5 ama 4 5 baa la gaarsiinaya sometimes meelaha qaar waxay ku leeyihiin waa badan yihiin ku yareynaya kule 3.35 milyan oo u taagan 8.12% percent ah marka ilaa 5 milyan weeyaa xanta meesha u socoto muslimiinta wadanka ugu badan ee islaam ku nool yahay way Yurub marka Ruushka laga tago waa Faransiiska Ruushka asaga western laguma tiriyo sometimes oo wadan si ahaan uga soo horjeeda oo waxyaabo badan ay isku mandafsan yihiin 2050 kana waaba filashadu waxay tahay leeyahay in dad badan oo muslimiin ay xaggaas gaaraan hadda waxay u soo dhacday maxay u diidaan in salaada la tukado waxa jira Sheikh Yusuf Istismi ala dhahayay Sheikh Yusuf waa sheekh daaci oo Amerikaan soo islaamay ay hoobin Amerikaan yahay soo islaamay wuxuu leeyahay markuu ka sheek mid baa weydiinaya marka Kristaan ah leh ee sheekhow way aad diintan uga bedelatay sabab aad diintan uga guurtay wuxuu leeyahay qisadu uga sheekeynaya waxaan ka rabaa wuxuu leeyahay aniga markii aan ahaa daaci waxaan ahaa leeyahay Kristaanka faafiya inta su'aalo soo ogaadaan waxaan weydiin jiray yiri inta qaybo kamid su'aalo confuse igu ridi ama wareer inta soo qaataan kaniga sarreey weydiin jiray markaasuu leeyahay no ha ogaanina iska dhaafa su'aalahan waa saas ma aha wuxuu leeyahay kitaabka quraanka inaan akhrisano waynu diidi jireen kitaabka quraanka way hada ogaada waxa la leeyahay kitaabkani dib idin keenaya iska dhaafa waa halis maxaad ugu diidaysaa oo galow maadaama diinka aad rabtid inaad dabcan aad bartid wax ma ogola waxay ku leeyihiin marka salaadu ilmaheena arkaya waana wax qurux badan oo soo jiidasho leh wayna sameynayaan barina way naga islaamayaan ayay leeyihiin waa sidoo dhihi lahaa aabba Soomaaliyeed ilaahay naguma keeno oo dalkiisii dhaqamo Kristaan inta la keenay leeyahay iskuuladii baa kaniisada laga dhex dhisaya u diidi lahaa wasiiradu yahay adu prime minister u diidi lahaa balse hadda waxaan ka baqayaa in la keeno qoryaha hadda sida hadda aan wax u socdaan marka eegto nimanku wax walba wataan waxa la waa wanaagsan tahay raqamku bale xaqiiqo waxa ah in waxyaabo hoos jiraan insha Allah mawduuc ma rajeynaya inaan ka soo sameeyo mar saddexaad baan leeyahay mawduuc mar dhaxan arkay qolyahan isku jinsiga sheegto leh Soomaaliya horumar buu ka sameeynaya barnaamijku marka adigu haddaad is leedahay wadankaagu 100% waa ka nadiif wadanka waa la wada joogaa marka Ilaahay hanoo amaaniyo hooyooyinka iyo dadka ku nool wadankaas ayaan tala ugu dambeena u soo jeedinayaa walaal islaamnimadaada ayaa wax walba ka qiimo badan iskuul la dhigto iyo meel kaleba magaalada Nice ee Faransiiska kala hadii culisada isku jiraan hadii magaalo kale ama iskuul kale ay jiraan oo gobolka ama wadanka ku yaalo oo wali aan bal shuruucda ay wataan qolyahan aan laga hirgelinin oo iskuulka salaada loo diidin maybe inaad prefer garaysan oo aadaan ayaa tala ah ilaahayna wuxuu ku leeyahay ya cibaadiy alladina aamanu in ardi wasi'atun fiya fa'budun dhulkaygu waa balaaran yahay caabuda marka hadaad cunugaagii salaad ku soo jiso soon ku soo jiso mashaa'irta islaamka ku soo waa salaada meeshii ugu dambeysay weeye ku soo jiso iskuul maadi waxa ka gaar horumar hadda adduun buu ku nool yahay maadi haduu adduun horumar ka gaarina waa ka tagayaa whatever uu noolaado iyo wax walba ka kasbada waa ka tagayaa marka ilmahaaga hooyo iyo aabe meel fiican u day dabcan hadii meeshii lagu nool yahay bal meel karoon iskuul ka sharcigooda uu ka duwan yahay u gooba kulli waxa ka wada jiraan bal mid dhaama goobo insha Allah hadaad kamid tahay walidiinta sharcigu uu abaaray waan salaamaya dhamaan waxa idin leeyahay ma santihiin mawduuc maanta way nala yara dheeraaday bahda Mo Cabdi waxa idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waana podcast-kii ugu horeeyeen mawduuc ku falqayno waxaan rajeynayaa inuu waxtar inoo lahaado insha Allah sidaas iyo salaam Allah